waa inoo sharaf inaan ugu soo biirto daawadaha sharafta badan channelka subscribe saaro qorsada saf marisa waa ugu yar tahay dalaalkeed 120 iga dhig والله تهاري marisa يا 120 والله شكلك والله عشان اي دلالته dhaqdhaqaaq aad iyo aad wuxuu ayaa laga dareemayaa suuqaqa xoolaha lagu iibiyo maadaama ciidul adha ay naga xigto hal maalin oo qura marka diyaargarowga ayaa si weyn loogu dareemayaa suuqaqa xoolaha lagu iibiyo dad badan oo suuqa xoolaha keensada xoolaha oo ku iibiya ayaa wanaagsan nolosha in ciidan ciidiyo ay ka duwanta xoolaha qaaliyoobay waxaan ka mid ahay dadka xoolo dhaqatada waana xoolihiina waa keenay anaga si wanaagsan nooga gataan xilligan aad bay u wanaagsan yihiin waa xilligii ciidaha muslimiinta ugu weyn ka mid ahayd xoolaha si boqolkiiba boqol ayaa la kala iibsado haya mashquul waa goobaha wax lagu xoolaha lagu iibsado dadka xoolo dhaqatii xoolaha soo safarsaday iyo kii ganacsi yahay iyo kii magaalada inuu ku ciido rabay dhammaantood way isugu yimaadeen way mashquul way aad buu circiiraya waxaan leeyahay ciid wanaagsan boqolkiiba boqol ciidaano soo waxa la jooga ciidi carafadana laba shaqo ugu weyn la qabtaa in xajka la aado in udxiyo la qashto maadaama hadda xajkii uu yar yahay sanadkan oo corona uu jiro dadku inta badan waxay u soo weecdeen in udxiyo sameystaan ay xoolo qashtaan sida darteed dadkii alla kuma sameeyay ganacsatada hayna ari badan ayay keeneen dadkii inay qashtaan dalab badan ayaa ka jiro dad badan oo fara badan oo xajka ka baaqday oo ku badashtay inay iibsadaan xoolo ayaa suuq soo buuxinaya suuqu aad buu fiican yahay walaal ganacsiga fiican yahay xoolo waa socdaan sax waa in ari badan iyo xoolo badan ay joogaan suuqa hase aatee waxa ka badan dabiicigii badnaa ee kumanaan kun ahay ee xajka ay jiray suuqa soo muraaday si ay uga faa'iideystaan munaasabadda ciidul adha qiimaha xoolo aad isu bedelay tusaale ahaan bishan dilxija bilowgeedii neefka birimada wuxuu ugu sareeyay 130 ahay hadda maanta neefka ariga ee birimada maxaa birimada hoosaha oo 130 ka bilowdo sidoo kale idaha oo biiska haysan ugu hoosay 120 maanta 150 ayaa ugu hoosaysa ilaa 200 waxa arkay hal neef oo la gadayo oo qiimihiisa maadaama waqtigiisa la joogo waxa way aad buu isu bedelay sarakaca ku umaaday waana dadka soo doonana ku og yihiin kuwa ku iibsanayana waa ku faa'iido qabaan dhamaantood dhinaca kale dadkii u soo iib doontay xoolaha ee doonaya inay ka faa'iideystaan ulxiyada ayaan wax ka weydiinay u diyaar garowga ay ugu jiraan soo dhaweynta ciida jawgiisu waa weyn yahay neefka 130 120 140 la gadayo 70 ama 80 60 la gadayo aan ku gadan jirnay marka waa sarakacay qiimihiisa waa aad bay noo saameeyay macnaha 70 neefkan gadan jirnaa 130 gadayna ama 125 muga aad bay noo saameysay oo iidu waa kacay argi xooluhu aad bay u qaaloobay ما شاء الله maantan soo doontay xoolihiina waa gatay alxamdulillah rabbil caalamiin soo dhaweey wanaagsan suuq waa buuxa waa barwaaqo ilaahay waa noo gargaar nabada alla nasiiyaan xoolaha iyaga ku gadanno ilaahay nimcadiisa haysanaa alxamdulillah rabbil caalamiin ma sha Allah iidii horena ma xumeyn la ooyana waa ka gatay xoolo haddeerna waa aan gatay alxamdulillah kala shar yar ma sha maanta iidana xoolaha si badan yihiin islay ala neef 130 sangay marka la gaaro maalmaha ciida ayaa suuqyada magaalada Muqdisho waxaa laga dareemaa saxmad aad u daran isla markaana ayagoo dadku u diyaar garoobaya maalmaha ciida Fartuun Maxamuud Axmed Shabelle TV Muqdisho